بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونسدا وديال halkan waa telefishinka dalsan muqdisho waxaan ka soo gudbinayaa barnaamijka faqraadda ciyaaraha waa arbaco taariikh waxay ku beegan tahay 17 bisha 9 sanadku waa 2020 warbixinada daqiiqada soo barnaamijkan ku soo qaadan doono waxaan qayb ka guud ahaan natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay kulamada xalay laga ciyaaray tartanka xiisaha badan iyo UEFA Champions League Arsenal oo guul ku furatay kulankii xalay ay la ciyaartay kooxda Atletico Club Real Madrid oo guul dirka ka gaartay guud ahaan waxyaabihii laga soo calaamadeeyay kulamada xalay ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League ayaa barnaamijka saaxiib ku soo qaadan doona sidoo kale waxaan eegi doonaa kulamada waaweyn ee caawa jira waxay dul istaagi doonaa kulanka adag ee dhaxmaraya Chelsea iyo sidoo kale Bayern Munich sidoo kale waxaan eegi doonaa kulanka adag ee isaguna dhaxmari doona Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid kulanka caawa ka dhici doona garoonka Anfield waxaan kala soo gudbin doonaa tababaraha kooxda Real Madrid Xavi Alonso waxa uu ka hadlay sababtii uu xalay kursiga kadib uu soo bilaabay xidigiisa lagu magacaabo Vinicius Junior guud ahaan kulankii xalay Real ay ciyaartay waxyaabihii uu ka yiraahday sidoo kale barnaamijka saaxiib ku soo qaadan doona Mbappe oo taariikh sameeyay si lamid ah waxaan eegi doonaa daayirka kooxda Real Madrid Franco Massatuno oo isaguna taariikh sameeyay barnaamijka saaxiib ku soo qaadan doona aan ku bilaabo barnaamijka faqraadda ciyaaraha dalsan TV xalay kulamo kala duwan ayaa laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League kulamadii koowaad ayana kooxuhu xalay ciyaareen Arsenal ayana guul ku furatay iyadoo guul muhiim ah ay ka gaartay kooxda kubadda cagta Atletico Club ciyaar ka dhacday gudaha wadanka Spain gaar ahaan garoonka San Mamés oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Atletico Club ama Atletico Bilbao kulankan ayaana qaybtiisa koowaad waxaa lagu kanaalay barbaro goolaan ever iyo ever ah iyadoo ugu dambeyntii qaybta labaad wax badan iska bedelay kulanka kadib bedelo dhowr ah oo ay sameeyeen tababarayaasha labada kooxood Arteta ayaana ciyaarta bedelo dhowr ah ku sameeyay iyadoo bedel ay ku soo galeen Martinelli iyo Trossard ay sabab u noqotay Arsenal inay guul muhiim ah ka gaarto kooxda kubadda cagta Atletico Club ugu dambeyntiina laba gool oo xidigaas ay kala dhaliyeen ayayna Arsenal kaga adkaatay goolka koowaad Arsenal waxa uu yimid daqiiqadii 72 ee ciyaarta waxaana u dhaliyay لاعبka lagu magacaabo Gabriel Martinelli kaasi oo ciyaarta isagu bedel ku soo galay Leonardo Trossard oo isna bedel ku soo galay ayana goolkaasi ka caawiyay sidoo kale 87 daqiiqo Trossard ayaa gool labaad u dhaliyay naadiga Arsenal waxa isaguna ka caawiyay Gabriel Martinelli ugu dambeyntii kulanka Arsenal laba gool ama laba gool ever ay kaga adkaatay Atletico Club iyadoo xidiga garoonka kulankaasna loo magacaabay Gabriel Martinelli oo ciyaarta runtii bedel ku soo galay isla markaana bandhig cajiib ah ka sameeyay Arteta kooxdiisu ayaana xalay si wacan ula ciyaaray kooxda kubadda cagta Club inkastoo qaybtii hore labada kooxood si weyn isku weerareen balse qaybtii labaad ayay wax walba isbedeleen iyadoo Arsenal ugu dambeyntii guul ay ku furatay tartanka xiisaha badan UEFA Champions League xilciyaareedkan 2020 kulankeeda labaadna 1 bisha October ee soo aadan ayay Emirates ku ciyaari doontaa ciyaarihii kale laga ciyaaray tartanka xiisaha badan UEFA Champions League xalay waxaa qayb ka ahaa kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa guul weyn waxay ka gaartay iyaduna kooxda Olympique Marseille oo ka ciyaartay gudaha wadanka Faransiiska laba gool ay Real Madrid iyaduna kaga adkaatay xalay ciyaartii qaybta ka ahayd kulankan ayaana ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu Real iyada ayaa goolasha looga hormaray oo laacibka lagu magacaabo Tommy Weah ayaa goolkii ugu horeeyay u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Marseille ugu dambeyntii Real qaybta koowaad inta la kala nasanin waxa uu soo barbareeyay laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe kaasi oo isagu xalay taariikh sameeyay rigoor loo dhigay kooxda inuu gool u bedelay Real Madrid waxa qaybtii koowaad ciyaarta oo socotay 5 daqiiqo oo qura dhaawac uga baxay garoonka laacibka lagu magacaabo Alexander Arnold oo shaxda koowaad tababare Xavi Alonso xalay ku soo bilaabay balse 5 daqiiqo oo qura kulanka socda laacibkan dhaawac ayaa soo gaaray dhaawac ay keentay in la bedelo isla markaana bedel uu ku soo galo Dani Carvajal oo isaguna xalay ciyaarta roose looga saaray daqiiqadii markii mareysay 72 daqiiqo ayuu laacibka reer Spain waxa uu qaatay roose kadib qalad uu ku galay golayaha kooxda kubadda cagta ee Marseille oo uu madaxa kaga dhuftay wajiga isla markaana ugu dambeyntii garsoorihii kulanka dhexdhexaadinayay uu siiyay kaarka roosaha waxalba noqotaba ciyaarta oo Real Madrid ugu dambeyntii barbaro ay ku furan kareysaa tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League bedel dhowr uu sameeyay Alonso waxa uu bedel ku soo galiyay laacibka lagu magacaabo Vinicius Junior iyo xidiga kale ugu dambeyntii waxa dhacday Real Madrid inay hesho gool kale oo rigoor ah kadib kubadda oo gacanta kaga dhacday daafaca ama kabtanka kooxda kubadda cagta Marseille rigoorihii loo dhigana mar kale waxa qaatay Mbappe oo gool u bedelay ugu dambeyntii laba gool ay Real Madrid ku furatay tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League xilciyaareedka 2020 kulanka ay ku ciyaartay garoonka Santiago Bernabeu iyadoo ugu dambeyntiina saddex dhibcood oo nadiif ah ka heshay kulanka ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Marseille kulamada kale ee laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League waxa qayb ka ah kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur iyaduna gool waxba ay kaga adkaatay naadiga Villarreal ciyaartii ka dhacday garoonka Tottenham ay ku ciyaarto goolkan ayaa ahaa gool qaldan oo iska dhaliyeen daafacyada kooxda kubadda cagta ee Villarreal ugu dambeyntii Thomas Frank guul ay ugu hogaamiyay kooxdiisa ee Tottenham Hotspur kulanka ugu horeeyay ka ciyaartay tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League PSV Eindhoven iyo sidoo kale kooxda
Coloson ayaa iyaduna waxa ay ahayd ciyaar kale aad u xiiso badan 3 gool ayuuna kulanka kusoo dhamaaday iyadoo Union St Colos oo iyadu 3 gool kaga adkaatay naadiga PSV Eindhoven kooxdan ayaana waxay tahay koox iyadu ku cusub tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League Azerbaijan ayana kooxdan iyadu ka ciyaarta Karabrakna waxay 3 gool kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Benfica kulan kale oo xiiso badan xalay waxa uu dhaxmaray Juventus iyo Borussia Dortmund kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan 8 gool iska dhaliyay walow qaybta hore kulanka uu ku soo dhamaaday barbaro ever ah balse qaybtii labaad ayaa waxa dhacday in goolal istaba jooga labada kooxood iska dhaliyaan ugu dambeyntii 4-4 ayuu ku soo dhamaaday iyadoo Juventus Dusan Vlahovic laba gool kamid ah goolash u dhaliyay kulamadaasi ayaa xal laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League kulamadiisa koowaad caawa ayaa iyaguna kulamo jiraan hadaba intaan eegin kulamada caawa la ciyaari doono waxyaabihii waaweynaa ee laga soo calaamadeeyay waxaa qayb ka ah Franco Mostatuno xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid oo xalay shaxda koowaad tababara Xavi Alonso ku soo bilaabay waxa uu noqday artijiyaankii ugu horeeyay ee isagoo da'yar ku soo bilaawda tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League isagoo Real Madrid medalaya horay Lionel Messi ayaa isagu rikoorkaas u haystay haatan Messi ayuu kaga wareegay ama uu rikoorkaas ka qaatay laacibka lagu magacaabo Franco Mostatuno oo isagu lagu soo bilaabay marka laacibka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ninka lagu magacaabo Franco Mostatuno ayaa isagu taariikh ka sameeyay kulankii xalay Real ay ciyaartay waxa uu noqday laacibkii labaad ee ugu daada yaraa ee isagu ka soo muuqda tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League isagoo markaa medalaya kooxda Real Madrid isla markaana ka soo jeeda Argentina waxa uu noqday ciyaartooygii labaad ayuu noqonayaa Lionel Messi ayaa ka horeeyay oo isagoo jira 17 sano 166 maalmood safta tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League isla markaana safka koowaad ugu soo bilowday kooxda Barcelona xalay isaguna waxa uu noqday ciyaartooy kale oo Argentina ka soo jeeda isla markaana safta kulankiisa ugu horeeya Champions League isagoo jira 18 sano iyo 33 maalmood isagoo jira ayuu laacibkan saftay waxyaabihii kale ee isaguna laga soo calaamadeeyay dhanka Real Madrid xidigeeda waxaa qayb ka ah laacibkan isagu lagu magacaabo Franco Mostatuno sidoo kale waxa uu noqday ciyaartooygii labaad ee ugu daada yar ee Real Madrid isaguna u safta tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League hore waxa kaga horeeyay Andrik oo isagoo jira 18 sano iyo 73 maalmood u saftay Real Madrid shaxda koowaadna ku soo bilowda kulan qaybka Champions League xalay mar kale isaga noqday isagoo jira 18 sano iyo 33 maalmood ayuu Real Madrid safka koowaad ugu soo bilowday laacibka lagu magacaabo Franco Mostatuno oo tababara Xavi Alonso xalay ku soo bilaabay shaxda koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kulanka ay la ciyaartay naadiga lagu magacaabo Marsilia sidoo kale Mbappe ayaa dhaliyay goolkiisii kontonaad tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 2024 ayuu laacibka ku soo biiray marka Mbappe isaguna bandhig cajiib ayuu ku sameeyay waxyaabahaasi ayaa ugu waaweynaa waxyaabay laga soo diiwaan galiyay kulamada laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League caawa kulamo kale ayaa laga ciyaaraya tartankan waxaan dul istaagaynaa kulamada sida weyn isha lagu hayo waxaan ku hormarayaa kulanka dhexmaraya Chelsea iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Bayern kulankan ayaa caawa 4 saacadoodnimo soo galaya waxaana uu ka dhacayaa garoonka Alianza oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Bayern ayuu kulankan ka dhacayaa haddii aan eego isarka kooxaha labadii kulan ama kulamadooda ugu dambeeyay kulankii ugu dambeeyay waxa uu dhacay 2020 xilligaana 4 gool iyo gool Chelsea ayaa looga adkaaday mar kalena 3 gool iyo waxba Chelsea ayaa looga adkaaday labadii kulan ugu dambeeyay oo Champions League isku arkaan Bayern iyo Chelsea labadu waxa adkaatay kooxda kubadda cagta ee Bayern Chelsea ayaana kulankii ugu dambeeyay ama guushii ugu dambeeyay oo ay ka gaartay kooxda kubadda cagta Bavaria waxa ay ahayd 2012 xilliga oo Chelsea ku guuleysatay Champions League ugu horeeyay markaana Allianz Arena ayana kaga qaaday koobka iyadoo Real ay kaga qaatay ciyaar ku soo dhamaatay gool iyo gool Didier Drogba ayaa lagu xasuustaa goolka barbaraha inuu dhaliyay kooxda kubadda cagta Chelsea iyadoo qaybta 30 daqiiqo lagu darana qayb kamid ah rigoore ugu qasaariyay Bayern Arjen Robben laacibkii hore ee xulka qaranka ee Netherlands ugu dambeyntii Chelsea inay ku soo adkaato garoonka Allianz Arena ama ay ka adkaato kooxda kubadda cagta Bayern waxa ugu dambeysay 2012 xilliga ayaa ugu dambeysay caawa ay mar kale sarkayaan iyadoo Nicholas Jackson uu caawa ka imaan doono kooxdiisii Chelsea oo amaah kaga maqan yahay hadaba kulamada kale la ciyaarayo waxaa kamid ah Atletico iyo Liverpool waa kulan kale aad u xiiso badan Anfield iyo kulankan ka dhacaya iyadoo labada kooxood ba caawa si weyn isha lagu heen doono kulankooda isarka kulamadooda ugu dambeeyay hadii aan eegno Liverpool labadii kulan ugu dambeeyay Champions League 2020 iyada ayaa adkaatay oo 2020 ayaa ugu dambeysay in Champions League Liverpool iyo Atletico ay soo rimaadaan ugu dambeyntii Liverpool labadii kulan ay ka adkaatay caawa mar kale Atletico Madrid waxay soo booqanayaan garoonka Anfield 4 saacadoodnimo ayuu kulankan soo galaya kulamada kale laga ciyaarayo tartanka xiisaha badan UEFA Champions League waxa qayb ka ah Olympiacos iyo Pafos caawa 2 saacadood soo galaya Slavia Prague iyo Podkalimid ayaa iyaguna caawa 2 saacadood soo galaya
inter caawa Ajax ay booqan doontaa 4 saac habeenimo kulan soo galaya sidoo kale naadiga tartanka difaacanaysa ee PSG ayaa iyaduna caawa waxay la ciyaar doontaa kooxda kubadda cagta Atlanta ee ka ciyaarta gudaha wadanka Talyaaniga ee Serie A 4 saac habeenimo ayuu kulankan soo galaya garoonka ay ku ciyaarto PSG ayuuna kulankan ka dhacaya ciyaarahaasi ayaa caawa saaxiibayaal laga ciyaari doonaa tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League oo iyagu xilliyeedkan 2026 si rasmi ah xalayta loogu ragay caawa markii kulamo la ciyaarana habeen dambe kulamo kale ayaa jiri doona oo Barcelona ayaa qayb ka ah ciyaar doonta si mid ah Napoli iyo Manchester City kulamadooda ayaa iyaguna habeen dambe la ciyaari doona guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faqraad ciyaaraha TV barnaamijka mid la inta kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo